سبحانه وتعالى ayaan mahad celinayna runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo masaajidkii Afwaax furitaankiisii oo aan muddo aan isleeyahay malaha dhowr sano ka hor dhagax dhigiisana aan joogay maanta nasiib ay ii tahay alxamdulillah ilaahay hadda ka hor markii hadda midda ukhrawiga la iska badaayo ee adduunyada kaliya laga hadlaayo nin masaajid naadirka ah muadinka ah ee haddaba nool ay sheekeynayaan dhahay wuxuu yiri masaajidka waxaan sameeyaa yiri aniga shaqo caadi ah leeyahay oo aan qabsado yiri oo aan magaalada uga xamaasho iyo magaalooyin kalaba on kasabka ka soo helo aan ilmahayga iyo waxayga danahayga ku guto aan ka soo shaqaystaan leeyahay yiri masaajidkana muadinaan ka ahay yiri waxa jirto yiri mararka gabal inaan wax qarashaba waayo oo jeebkayga lacag ka dhamaato waxa ay qabato yiri mararkaas inaan haddana wax shaqo idirsadaba waayo saacada culaysyadaas aan dareemo meeshan joogan ka soo dhaqaaqaa yiri xilli ka soo tahay haday habeen barkii tahay masaajidka inta tagan xaqin ku bilaabaa yiri kitaab jaamaca wuxuu ugu maraa ninkaas waa nin maanta nool oo dhiman inta shaqada ku jira inta la soo caleeray meel hebla shaqa laga raba kala ka qabo waa wax mujarraba ee asagu uu sameeyay waa qof nool hadda jooga mujada marka masaajidku waxay xaqiiqadu tahay kama bil yara ariga ila shaydi mujada waliba inta asaga ku jirto hadaad i'tikaaf niyeysato inta ku jirto ama ka shaqeeyo shaqo kale oo si dheeraad oo ajir aad ka helayda ka dhax qabo oo mesela ama tasbiixso ama quraan akhri ama xaaq shaqo masaajidka ka qabo udana ama adigu iska dhex baadayso i'tikaaf hadaad niyeysato markaad soo gasho ajir isaga ka soconaya hadaa xataa inta i'tikaaf niyeysato saaka soo gashid oo markaas wax kale aad ka qabanayn oo laba ragcoo sunna iska dukatid hurdo kugu dhex qabata aad seexatid i'tikaaf niyeysanta moogtaa intaas aad hurdada ajir ku socdo عائرتها iyo calaamooyinkeeda waaweyn shay kamid aan isugu nimid ee dhaqamada islaamka qaaliga oo furitaanka masaajidkana ku yaala tuulada Afwaax harina kullu maqam lahu maqal lawla kalimaad muhaadarana soo jeedi doono macallinku tilmaamay yaani xilli ka soo la joogo waxyaalo ku haboonaya jira marka lawla waxaan isugu nimid yihiin furitaan masaajid ayay kalimaadkii wixii ku wajahnaan doonaan waxyaalo qusay masaajidka masaajid marka la leeyahay shariicada islaamku waxyaalo uga hadashaa waa mawduucaad kala duwan aad u tira badan kooban rabnaa baxsho aad u yar marka koobaad waxaan u bagaadinaynaa una mahad celinayna dadka ka qayb qaatay dhismaha masaajidkan dadka deegaanka ay ku jiraan oo kamid yahay Abdulqaadir Sayyid Ahmed Qeyr badan Allah siiyo kaalin xoog laasna uu ka qaatay yadada kala duwan oo culimada la joogtay iyo dhamaan cid ka soo ka qayb qaadatay waan mahad celinaynaa ciidaantu ku bixiday oo kuwa dadka deegaanka aadan ugu mahad celinayna arrinta ay ku dhiiradeen iyo shaqada badan ka soo qabteen qaasan qolay dadka kale ka qayb qaadatay aadan ugu sii mahad celinaynaa Abdulqaadir aadan ugu mahad celinaynaa culimada arrimahaas ka qayb qaadatay iyo ku tashkiilin dadkaas iyo wargaarsiintooda aadan ugu mahad celinaynaa dadka dhamaantood siday gurigan uga dhisan meeshan iyo beedkan quruxda badan ayay mid qiimo badan jannada uga heli doonaan sida nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamay xadiiskii muslim saxiixiisa oo ku wariyay man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu fil jannati mithlahu بمعنى مسجدا لله قفك سو إلهي درت ولسه مساجد نيدا ونكسن يا إلهي درتي قفك سو مساجد ولسه مساجد كامل لمدها جنة الله قد صاب النبي إنه تلمام عليه الصلاة والسلام والله ليال أنا علمي عن الله هاي ماشى مصطفى دي سنة مقعي هدي الله شيء أنا مصطفى ديستي ضدك علمي قال هاي وي هذلان وحلا ده لهاي أو من مجران وعرب هالحديث أما الله بحديث oo ku saabsan masaajidka iyo shaqooyinka lagu qabto qaybo kamid ah inaan baraarujiyo masaajida waxyaabaha ugu waaweyn oo loo dhiso waxa kamid ah salaada in lagu dukado in lagu jameecaysto masjidku markuu ku yaalo tuulada masaajida tuulooyinka in kastoo aan badsan tagitaankooda
waxaa iska caadi ah in qofba mar inta soo galo ku dukado inta anigu arkay waxaa kaloo iska caadi ah in daashashka lagu dukado tuuladiiyo ayada dhanba 10 qof joogtay in 10kii qof lababa mar iska dukatay midba meel iskaga dukado ama daashashka ay ku dukadaan ama 10ka laba ama 3 aan dukan aan la baraarujin oo la keenin masaajidka waxay ka dhigan tahay inaan masjidkaas wixii loogu tala galay looga faa'iideysan waxaan rabaa marka inaan ka hadlo wax yar salaada jamaacada fadligeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri salaatul jamaaca أفضل من صلاة الفد ب27 درجة صلاة جماعة هي waxay ka fadli badan tahay salaada qofku kaligiis uu dukado 27 darajo darajo kastana qadarkeeda ay qiimaheeda Ilaahay uu og yahay صلي في كل ساعة عليه سرمدا يا الله بجاهك يا رسول الله بجاهك يا حبيب الله والآل والأصحاب جمعا وكل الأولياء يا الله بجاهك يا رسول الله بجاهك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa mahad iskale noo soo dhameeyay masaajidkii afwaax waxaan joognaa meeshii masaajidka laga dhameeyay marka waxaan rabnaa hadii ilaahay idmo masaajidkii waa la dhameeyay dhismihiisii waxa yar oo dhiman hadii ilaahay yiraahdo dadka khayrka badan kan masaajidka dhameystiray inay dhameystiraan waxa yar oo ka dhiman baraagta iyo deyda u dhiman marka waxaan rabnaa inaan arintaasna is ogeysiino hadii ilaahay yiraahdo waxa yar oo qabyadaha ku jira aan u duceyno una mahad celino inta ka qayb qaadatay dad waxa jira dhintay oo loo waqfay qaybo kamid ah dad waxa jira wadamo kore jira oo wax ku darsaday marka inay ogaadaan wixii maartay ay soo sadaqaysteen meesha ay mareen in looga mahad celiyo ilaahayna loo bariyo wixii ay rabeen in ilaahay maartay uu ugu amaal gudo aakhriyo adoonba marka masjidka laga dhisay insha Allah أولا إلهي المهد علينا إن شاء الله مساجد كان رتام بيرا إلهي المهد علينا آديات بعد كده وحنا مهد علينا ندك مالكو ذا كبحيو مالكو ذي الغدسي ضد دنتي وحجر مال لو قدر الله ونحريصه ضد نور مال بدنا قدر ساجر إن شاء الله وانت أثناء يغنى مرادكو الدنيا خرب الله سهل الله بركايو إن شاء الله ضد كيد ما عبد الله سيد أحمد وما رفت الدزال بدن بحشي وحرية الدنيا خرب الله كل يبانو dadkii wax ku darsan maalkooda lagu dhisay Allah liibaano insha Allah intii hore waa alxamdulillah waa masaajid waa noo dhismay waxaan u sheegaynaa qof kasto muslim oo maaragtay wax awoodana hadda waxaan kor taaganaa barkadii masaajid loo dhisi lahaa oo loogu weesaysan lahaa oo hadda qodideedii la wado maaragtay waxa wali aan qodnayn maalna aan loo hayn waxaan sar codsanaynaa insha Allah in maaragtay hawsha wanaagsan oo qaaliga ahna lala taam yeelo barkadana loo dhiso insha Allah inta hadda kor wax ku darsan Allah liibaano انت كذا بعد قدر صدق ادويه اخرى الله خليه ان شاء الله سداس الله ان شاء الله علماء ان شاء الله soo martay warbixintii masjidka iyo xaaladiisa oo dhan insha Allah aad iyo aad waxaan sida macallimku u sheegay waxa laga an ka codsanaynaa dadka muxsiniinta maalka bixiya insha Allah ilaahay wax siiyo khayr leh ilaahay wax khayr leh inuu siiyo masaajidkii ay maalkooda galiyeen insha Allah wixii ka dhiman baraagta oo loogu weesaysan ayaa ka dhiman waxa ka dhiman deydkiya ka dhiman waxyaalo badan oo insha Allah lagu dayactirayaa ka dhiman waxa intii maalka ku bixisay oo ama dhinteen ama har noolaadeen waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkooda iyo diinkooda ilaahay inuu barakeeyo intii dhimatana ilaahay u naxariisto maalkoodan adduun iyo aakhira ilaahay inuu barakeeyaan ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah intii dibad jirtay iyo inta dalka joogta intaba waxaan ugu baaqaynaa oo ka codsanaynaa masaajidka wixii ka dhiman oo sida baraagto kale oo hadda qodninkii uu marayo meel kala bar ah deydkiina uusan bilowna shaqana insha Allah waxaan ilaahay uga baryaynaa oo ka codsanaynaa dadka muxsiniinta in ay insha Allah sida shar ugu dadaaleen ilaahay inuu
أجر يحسن كسية إني أدلالن هدنا ساعة كعصنا إن هدي الأدمى مساجد كي وارثين هاي مالك مياشات كستين وقت كسوة مساجد كاتقرح البلد براكتي ودول تاجنا وقبيا والقضية إن شاء الله وعندك إلهي قبرينا أنت مالك كب حسي أنت إن شاء الله هدك بعد كب حدون طبعا أنت بقى الدنيا خير إلهي اللي بينه وأنا ما هسنتين بقول كيف بقول إلهي اكتسب ما هذين كجارته جندين الله نكون بشاريه مالكين إن الله بركيه ذنبين الله